Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada taariikhda dalalka Islaamka qaybtii shanaad. Qaybta shanaad maanta waxaan ku falanqayn doonaa dalka Iiraan. Iiraan waa jamhuuriyad Islaami ah, waxaana lagu magacaabaa Iiraan, waxayna dhacdaa bartamaha Aasiya. Caasimadda dalkaasina waa Tehraan. Badka dalkaasina wuxuu gaarayaa 1.6 milyan kiiloomitir iskuweer. Wax soo saarka dalkaasi waxaa lagu qiyaasaa 80 boqolkiiba. Luqadda rasmiga ah waa luqadda Farriisiga. Caasimadda Tehraan waa caasimadda ugu weyn. Tirada badkeedu waxaa lagu qiyaasaa 430 mitir murabbac. Iiraan waxa ay leedahay gantaalo nukliyeer ah, waxayna wax ka burburin karaan bariga fog ee Yurub. Ciidamada dalkaasi waxaa lagu qiyaasaa 100,000 oo askari. Iiraan dhankasta ciidamadeeda iyo hubkeeda way horumarisay, waana dalka kaliya ee Islaam ah ee ciidamadiisu ka baqaan Israa'iil iyo Mareykanka iyo Yurub guud ahaan. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa taariikhda dalalka Islaamka. Maanta aan ku falanqeynaynay dalka Iiraan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.